iyadoo ay socoto dardargelin lagu sameynayo manhajka waxbarashada dalka taasi oo faa'iido iyo horumar u leh waxbarashada Soomaaliyeed ayaa waxa manhajka waxbarashada dalka lagu soo kordhiyay maadooyin ku cusub ardayda Soomaaliyeed sida maadada tiknoolajiyada businesska iyo ganacsiga inkastoo qaar kamid ah maamulada iskoolaadka iyo ardayda ay fikir ahaan qabaan in maadooyinka ay yihiin kuwa ku culus faham ahaan maadaama ardaydu aasaaska maadooyinka aysan horay u soo qaadan qaar kamid ah ardayda ayaa sheegay in maadooyinka ay ku wanaagsanayeen in laga soo bilaabo waxbarashada dhinaca aasaaska ayna ku adag tahay fahamka waxaan jeclaan lahaa in maadooyinka form-4ka in waxyar laga dhimo si anagana aan bundooyinka arno iyo heerka arno u tigsano maadooyinka kale dib kuma qabno laakiin hal maad una dib ku qabnaa 5 ilaa 6 ilaa 7 oo soo qaadanaa maadada tiknoolajiyada ah inta kale maadada waxa dib u qabnaa malahan Macallin Nuuruddin Maxamed Cabduqaadir oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulka hoose dhexe sare ee Raago Ugaas ayaa ka hadlay saameynta maadooyinka ay ku yeelatay ardayda iyo sida ardayda ay ula qabsan karaan haddii aan dhinaca kale u fiirin caqabada guud ee ka haysato ardayda maadada tiknoolajiga waxay tahay ma haystaan base maxaa yeelay maadadan waxaa loogu talagalay beeska ardayga inuu ka fahmo maamulaha iskoolka hoose dhexe sare ee Xamar Jajab Macallin Cabdinuur Cabdullaahi ayaa sheegay in maadada tiknoolajiyada ay u baahan tahay in laga soo bilaabo aasaaska fasalka shanaad sida saxda waxay ahayd in ay maadooyinkaasi ay ka soo bilaabaan beeska oo maxay ardayga aasaaska looga soo bilaabo ay la socoto ardayga ay ku la qorto Cabdullaahi Cabdi Mire Tarmuus oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda maadooyinka ay u leedahay ardayda iyo caqabadaha fahamka ee haysta ardayda caqabada koowaad oo leeyahay waxa waaye maadooyinka inay aad u fara badan yihiin 13 maado yani fasal qaadi kara ma jiro adduunka waa laga yaabaa haddii loo qaybiyo sida caalamka loo yaqaano in form-4 loo qaybiyo laba qaybood qayb ah cilmi qaybna ah adabi maamulaha iskoolka hoose dhexe sare ee Raago Ugaas Cabdiraxmaan Maxamuud Cali ayaa sheegay in maadooyinka ay ku badan yihiin ardayda Soomaaliyeed ayna u baahan tahay maadada tiknoolajiyada in aasaaska laga soo bilaabo dhibaatada koowaad waxay tahay maadooyinka way badan yihiin maadooyinka dugsiga sare waxaa la gaarsiiyey ilaa 13 kan maado waxaa darislaa ardaygu wuxuu ku sugan yahay caqabado dhaqaale mid amni mid caafimaad marka suuragal maaha agaasimaha waaxda manaahiijta ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Soomaaliya Maxamed Xasan Mukhtaar ayaa sheegay in maadooyinka aan sanadkan lagu soo dari doonin imtixaanka sanad dugsiyeedka marka haday sidaas tahay ardada waxaan ugu talagalnaa maadooyinkaas tiknoolajiga iyo businesska sanadkan inaan dhaqan gelino fasalka koowaad iyo fasalka labaad ee dugsiga sare laakiin fasalka saddexaad iyo afraad dugsiga sare Maxamed Muuse Cismaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho